marka aynu ka hadlayno hawsha basaasida waxaanu ka hadlaynaa hawlo khatara oo xafidan khalad kasta oo ka dhacana uu kugu sababi karo inaad naftaada ku weydo iyadoo dadka basaasiinta ay qabtaan oo fuliyaan shaqooyin adag iyagoo aan la kashifin dhagartooda ama waxa ay cararaan oo baxsadaan markii loo ogaan lahaa kuwaasina waa basaasiinta darajada sare basaaskii Sidney Reilly oo magaciisa qarsoon ahaa James Bond waxa uu ahaa ninkii ay u suura gashay inuu ka saacid caleeyo oo ka kormaro basaasiin kale oo badna waxaana uu isticmaali jiray ilaa 11 baasaboor waxaana uu ku xidhnaa ilaa 11 xaas oo lahaa waxa muddo dheer raadkiisa ku joogay oo isaga laftiisa ugaarsanayay sirdoonkii midowgii Sovieti kadib markii uu macluumaad dhanka sirdoonka ah oo joogto ah siinayay hay'adda sirdoonka ee dalka Britain ilaa maantadan aynu joognana cidina ma oga waxa ay ahayd dhalashadiisu iyo xitaa magaciisa rasmiga ah waxaana uu si dhammaystiran ugu hadli jiray ilaa 7 luqadood isagoo 11 jirkiisana lagu xaman jiray inaanu aabbo rasmi lahayn Sidney Reilly waxa uu saaxadda ka qarsoomay muddo dheer ugu dambeyntiina meel uu ku dambeeyay lama oga basaaskii kale ee Thomas Edward Lawrence waxa uu ahaa jaasuus u dhashay Britain noloshiisa inteeda badanna ku qaatay caalamka carabta oo uu bartay luqadooda iyo dhaqamadooda isagoo nolosha baadiyaha ku noolaa waqti fara badan waxaana uu Britain u gudbin jiray xogaha basaasinimo ee uu ka helo dalalka carabta markii uu socday dagaalweynihii koowaad ee dunida waxaana uu ahaa basaaskii carabta ka hoos saaray dawladdii Cusmaaniyiinta Gordon Brown waxa uu ka fadhiistay hawsha basaasnimada iyadoo Britain u aqoonsatay inuu ahaa halyey qaran laakiin muddo kooban ka bacdi markii uu ka fadhiistay shaqada waxa uu ku dhintay shil gaari gabadhii basaasada caanka ku ahayd ee Christian Keller waxay ahayd inaan ka faa'iideysatay xiriirkii dhawaa ee la lahayd wasiirkii dagaalka ee Britain John Bovary waxaana ay ka heshay oo u gudbisay dalka Ruushka macluumaad fara badan oo khatar ahaa waxaana ay muddo dheer gudaha dalalka reer galbeedka uga shaqeynaysay si qarsoodiya iyadoo xitaa ugu dambeyntii aan la kashifin arrinkeeda basaaskii Rafid al-Hijan oo u dhashay dalka Masar waxa uu ku noolaa gudaha Israa'iil oo uu muddo dheer kaga shaqeeyay hawlo basaasnimo waxaana uu ahaa ninkii soo gudbiyay hanaanka ciidamada Israa'iil iyo hubka ay ku dagaalamaan isagoo tafaashiisaasi si xafidan u soo gaarsiiyay sirdoonka dalka Masar sanadihii 50-yadii iyo 60-yadii ee qarnigii 20aad waxaana uu geeriyooday markii uu dib ugu soo noqday dalkiisii hooyo ee Masar isagoo aan cidina ogaanin inuu Israa'iil u joogi jiray hawlo basaasnimo xitaa iyadoo aanay ogaanin xaaskiisii basaaskii King Philip B waxa uu ahaa jaasuuskii muddada qiyaamiyay sirdoonka Britain oo uu ka mid ahaa waxaana uu dhawaadayba inuu noqdo gudoomiyaha hay'adda sirdoonka ee Britain inkastoo uu ahaa basaas ay adeegsanayeen dalka Ruushku hase yeeshee ugu dambeyntii markii la ogaaday ayaa ka hor intii aan la qaban waxa uu soo baxsaday dhinaca dalka Lubnaan halkaas oo uu uga sii gudbay waddanka Ruushka oo uu deganaa qaybtii dambe ee noloshiisa